Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Daawadayaal waxaad ku soo dhawaateen janaalka Somali Stars Official. Fadlan subscribe saar janaalka, furo gambaleelka si aad u noqoto daawada koowaad ee daawada barnaamijyada cusub ee aan soo gelino. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Asxaabe, waxaan ka cudur daaranayaa inta maalin ee aan ka maqnaa YouTube-ka. Waxaase ku maqnaa wax kale ma ahne barnaamij cusub ah idin soo wado. Mar dhow insha Allah waxaad ka daawan doontaan Somali Stars Official. Markasoo asxaabe haliga raali noqdo inta aan ka maqnaa sheekada aan idinka soo daahiyey. Hadda kadib waxay inoo noqon doonaan taxana. Maalin walba waxaad daawan doontaa ama aad dhegeysan doontaa sheeko cusub oo ah sheekada kun habeen iyo habeen qaybteeda kale. Sheekada qaybteeda koowaad waxay ku bilaabatay sida tan. Waxaa la sheegaa Alle ayaase og xaqiiqdii inuu jiray waa hore boqor oo ka mid ahaa boqoradii reer Saasaan, taasoo dhacda galbeedka Hindiya iyo Sandi. Wuxuuna ahaa boqor leh awood ciidan iyo mid dhaqaaleba. Wuxuuna dhalay 2 wiil oo kan weyn la dhihi jiray boqor Shahriyaar, kan yarna boqor Shahzamaan. Waxaa dhacday in boqorkii weynaa uu xanuunsaday xanuunkiisii geerida kadibna isugu wacay 2diisii wiil ee amiirada ahaa. Wuxuuna u sheegay in boqortooyada u kala qaybiyey oo midba goonidiis wax u xukmin doono oo aysan isku xadgudbin. Kadib markuu boqorkii weynaa dhintay, 2dii wiil sidii ayay yeeleen, mid kasta boqortooyadiisa ayuu maamushay. Muddo markii ay ka soo wareegatay oo aysan is arkin ayaa waxaa dhacday in boqorkii weynaa ee Shahriyaar u xiisay walaalkiisa ka yar. Wuxuuna u qoray fariin uu ugu sheegaya in uu u xiisay oo uu u imaado. Boqorkii yaraa wuu ka yeelay hadalka walaalkiisa, wuxuuna go'aansaday in uu u safro. Maalintii dambe ayuu soo safray boqorkii yaraa. Markuu muddo jidka kusoo jiray ayuu wuxuu soo xasuustay inuu iska soo ilooway hadiyad qaas ahayd oo ugu talagalay walaalkiisa ka weyn. Sidaas darteed dib ayuu u soo noqday, wuxuuna qasrigiisii ku soo noqday waqti habeen ah. Markuu qolkiisa soo galay ayuu wuxuu arkay arrin argagax leh, aadna ugu fajacsiisay. Wuxuu arkay xaaskiisa oo adoon sariirta la saaran yahay. Boqor Shahzamaan markuu arkay arrinta ayuu adduunka la madoowaaday. Wuxuuna is yiri, haddiiba naagtaada falkan ku kacday adigoo aan weli beledka toos uga bixin, maxaa dhici lahaa haddii aad maamo sii maqnaan lahayd. Markaas ayuu go'aansaday inuu labadoodaba ka takhaluso, asigoo kurka ka wada gooyay. Kadib boqorkii asigoo murugaysan ayuu iska soo baxay, wuxuuna u yimid walaalkiis iyo boqortooyadii uu ka talinayay. Kadib boqor Shahriyaar aad ayuu ugu farxay imaatanka walaalkiisa ka yar, si fiican ayuuna u soo dhaweeyay. Laakiin wuxuu dareemay in walaalkiisa ka yar faraxsaneen. Markaas ayuu u qaatay inuu la murugaysan yahay maadaama uu ka soo fogaaday dhulkiisa iyo boqortooyadiisii. Kadib boqorkii weynaa wuxuu sameeyey mowqif si ay ugaarsi iyo tamashle u aadaan, asigoo ugu dan lahaa in walaalkiisa ka yar kaga farxiyo si uu murugta u iloobo. Maalintii la bixi rabay ayuu boqorkii yaraa ka cudur daartay inuu baxo. Kadib walaalkiisa weynaa iyo kooxdiisa keligood ayaa ugaarsigii aadeen. Boqorkii yaraa asigoo qolkiisa isaga jiro aadna u murugaysan ayuu daaqada qolkiisa oo xigta dhinaca beerta qasriga shanqar ka dareemay. Markaas ayuu dhinaciisu aaday. Wuxuu arkay arrin ka yaabisay tii haysatana ka daran. Waxaa beerta qasriga soo gashay dumaashidiis uu qabay boqorkii weynaa oo adoon gacanta haysato, iyo 20 jaariyood oo mid kastaba adoon gacanta ku haysato. Halkii ayaana tumasho la galay. Markaas ayuu boqorkii yaraa ee Shahzamaan is yiri, walay dhib ku haysta waxaa ka daran kan walaalkaaga maanta haysto. Wuxuuna go'aansaday inuu iska iloobo murugtii haysatay, caadina iska noqday. Markuu soo laabtay boqor Shahriyaar wuxuu dareemay isbeddelka ka muuqda walaalkiisa boqor Shahzamaan. Wuxuu go'aansaday inuu weydiiyo,
Markii dambe ayuu weydiiyey, wuxuuna ku yidhi, walaalow, halkan markaad imaanaysay waxaa kaa muuqatay murug iyo tiiraanyo, laakiin hadda caadi ayaa tahay, ee waxaad ii sheegtaa waxa murugta kaa keenay iyo waxa murugta kaa qaadayba. Wuxuu ku jawaabay boqorkii yaraa, waan kuu sheegayaa waxa murugta iga keenay, laakiin kuuma sheegayo waxa murugta iga qaaday. Markaas ayuu boqorkii weynaa yidhi, waayahay, bal ii sheeg waxa murugta kuu keenay. Markaas ayuu ugu sheekeeyey arrintii uu kala kulmay xaaskiisa iyo addoonkii ay sariirta la saarneedba. Markaas ayuu boqor Shahriyaar yidhi, ilaa waa inaad ii sheegtaa waxa kurbadaas saas u weyn kaa qaaday. Markuu ku adkeeyey ayuu sheegay wixii beerta qasriga ka dhacay. Boqorkii weynaa wuu rumaysan waayey. Markaas ayaana walaalkiisa ka yaraa ku yidhi, haddaad beentayda u malayso, dadka isugu wac oo ku dheh dalxiis iyo ugaarsi ayaan aadaynaa. Markii la baxana inta soo dhuumato qolkayga soo gal. Boqor Shahriyaar sidii ayuu sameeyey. Kadibna maxaa dhacay? Boqor Shahriyaar wuxuu arkay xaaskiisa iyo addoonkii iyo wixii walaalkiisa ugu sheekeeyey. La soco qaybta labaad ee sheekada Kun Habeen iyo Habeen. Waxaad sheekada qaybteeda labaad ka daawan kartaa ama aad ka dhagaysan kartaa barta YouTube channelkeena Somali Stars Official. Fadlan like saar videogan, ha ka iloobin share, waxay inoo tahay dhiirigelin si aan mar walba usoo gelino waxyaabaha cusub oo ku xiisa geliya. Waxaad ka daawanaysaa Somali Stars Official. Daawade, aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay daawashada aadna daawanayso. Caught in the crossfire.